waxa Faysal Cali Waraabe uu eedayn u jeediyay madaxweynayaasha dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland xamar waxay doonaysaa inay remote inagu disho oo isticmaasho dawlad goboleedka Garowe reer waxaan sheegayaa yaalin soo diray inaga isku xuduuda inaga ehla inaga حد ولا له حسن شيخ محمد هدول عقد صوصيو صوصيو سو كل دمان مايو واحد كل دمان يا waa inaga ma waxa leeyahay aqal hala keeno abdiwalowna waxa leeyahay hadad professor tahay professor warlord ma noqdo hanjabaysina waxa ka fiicnaa waa afnaansan ku hadlaan hanjabaad way Soomaaliya ka dhamaatay wuxuu isagoo dawlad goboleed sheeganaya ayuu 46 wasiir sameeyay أنا واحد مركز دولة السمية أنا دولة أنا هن قالوا ما بكذا دولة دقالت هاي وور كابينت السمية قبيل كسابسا قبائل دقالة دي قبيل ككونفورت أي كوك العرف قاعدين أيو دولة يوم تسوي دي كده بالعباد ضدك وعليها مكان سايد دقيقة بقول يا مركز واحد حملنا هاي نين دقال كوب باقي الله باهو تبي يوري وتكلم سا موصلين بعد وقت هاي كود تبين ودولة همره يا عبد الولو Soomaali dhibaato u keenin Soomaali dhibaato u bilaabeen ana way ga dadana odayaha maanta inta siyaasad ku jiray waxaan socdaa ka socda access-kan Garowe iyo xamar ka socda ee Soomaaliya ku wajahan wala nagu khasaara lanaga ma faa'iido lana dadka oo sameynaa dadka oo fiican anaga isku xidhan dadka oo fiican ma waxaan leenahay ninka isaysan waa aniga عبد الولو ninka maanta aad ka hor imanaysan diyaar garow hadaad wanaag jidid ana tuusan soo xiranaya